muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa cashirkeena afraad oo ah basic navigation ee Adobe InDesign taxaniina Adobe InDesign inoo socday. marka cashirkeena afraad waxa weeyaan basic navigation. haddii aan ku tuso casharadii halkan haddii aan tagno waad arkaysaa waxaan qaadanaa maanta cashirkeena afraad ee basic navigation. waxa kaloon raacin doonaa adding text ayaan raacin doonaa insha Allah taala. labada cashar baan israacsan doonaa oo adding textiga ayaa aad u kooban oo aan wax kaliya cashar laga samayn karayn. marka waxaan tagayaa Adobe InDesign, waxaan doonayaa basic navigation ka horreyn qaadanayna waxa weeyaan zoom in and out. zoom in and out. magacaygu waa Abdifataax Maxamed. fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, la wadaaga asxaabtaada, wixii faallada qabtana commentiga inoogu reeb. haddii aan cashirkii noo horreeya qaadano waxa weeyaan zooming in and out, inaan shayga iskana durkin karo soona dhaweysan karo. markaan doonaya inaan soo dhaweysto waxaan tegayaa haddii aan toolbarkayga tago oo aan hoos socdo halka waxaad ku arkaysaa zoom tool oo aad set xarafka set ku tagi karto ama aad ayar intaad hoos soo dhaadhacdo aad click siin karto. marka wuxuu samaynayaa kani inaan click idhaahdo oo uu saa igu soo dhaweeyo. haddii aan doonayo inaan dib isaga durkayna waxaan samaynayaa anoo alta key xijinaya ama xarafka key alta ay ku qoran tahay anoo saa xijinaya inuu minus ugu ka bedelo, kadib aan kolba ayar click taabto uu dib iga durkiyo. haddii aan doonayo inaan soo dhaweyna aan kolba plus taabto aan sidaa usoo durkisto. waxaa kaloo samayn kartaa waxa weeyaan inaad isticmaasho keyboard shortcuts inaad isticmaasho oo waxa weeyaan inaad isticmaasho control iyo minus si lagaaga durkiyo iyo control iyo plus si aad usoo dhaweysto inaad isticmaasho labada shay. basic navigation keena labaad waxa weeyaan inaan sameeyo moving around the document, inaan documentiga dhex socon karo. haddii aan move toolkayga ku noqdo, haddii aad arkayso halkan waxaa yaala horizontal line oo aan kolba dhinaca ugu dhaqaaqayo bidix iyo midig, iyo xaggan oo vertical line u yaalo oo aan marna kor ugu dhaqaaqayo marna hoos ugu dhaqaaqayo si aan documentiga iyo kolba dhinaca aan doonayo aan u tago. waxaa kaloo samayn kartaa waxa weeyaan inaad toolbarkaaga timaado, kadib aad hoos socoto aad halkaa tagto hand tool ay ku qoran tahay, kadib aad ayar saa u dhaqaaqaajisto oo hand toolka ayaa ka fudud inaad kolba line dhaqaajiso aad kolba dhinaca durkiso adoo ayar kolba meesha doonto tagay documentiga. waxaa kaloo samayn kartaa in adoo move toolkaaga jooga adoo waxba hand toolbarka aan tagin inaad samayn karto space bar inaad xajiso, kadib oo ayar hand toolkiisu ka bedelo aad sidaa u dhaqaaqaajisato aad kolba meesha doonayso tagto. kaasi waa basic navigation keena labaad. basic navigation keena saddexaad waxa weeyaan fit page on Windows, inaan pagekan halkiisii saxdayd ku celiyo anoon waxba zooming in iyo out toon aan odhanayn oo waxba aan durdurkinaynin. waxaan samaynayaa markaan doonayo inaan page halkiisii ku celiyo inaan tago view, kadib aan tago fit page on Windows ama fit page in Windows aan ayar saa u taabto halkiisii lagu celiyo. haddii aan soo durkiyo aad u soo durkiyo aan ku tuso shortcut keyboard shortcut, waxaad samaynaysaa inaad isticmaasho control+0 oo ayar halkiisii lagu celiyo documentigaagii ama screenkii lagu leekaysiiyo. qaabkaas oo isticmaalaysaa kaana. basic navigation keena afraad waxa weeyaan rotating and resizing. haddii aan saa usoo durkisto si aan ku tuso oo aan ayar halkan tago waxaan doonaya haddaba inaan sameeyo inaan kan wareejiyo aan rotating ku sameeyo. waxaan samaynayaa halkaa markaan joogo ayar baan koonaha u yar durkisanayaa. markuu cursor-kaygu noocaa isu bedelo labada dhinac labada arrow kule ayaa waxaan samaynayaa inaan click idhaahdo aan anoo xijinayo mouse-kaygii inaan saa u wareejiyo kolba xagasha aan doonayo aan ka dhigo. haddii aan vertical doonayo aan sidaa uga dhigo. haddii aan doonayo inaan ku soo celiyo halkiisii horena aan ayar saa u wareejiyo. marka waxaa laga yaabaa markaad sidan u wareejinayso inaad xaglihiisi xigmido oo saasoo kale qalloocsaayar kale kaaga yargalo. marka waxaad samaynaysaa haddii aad doonayso inaad iska saxdo halkaa ma taabatay xagisha aad tegaysa waa inaad doorataa. halkaa markaad doonto timaado iminka haddii aan doonayo inaan sidaas tooskaa uga dhigo waa xagal eber ah ama 0 degree. kadib waxaan samaynayaa halkaa haddii aad arkayso aan joogo ama rotation angle ay ku qoran tahay inaan ayar 0 gashado, kadib aan banaanka click idhaahdo oo laygu celiyo tooskiisii laga dhigo. haddii aan doonayo inaan vertical ka dhigo waa xagal 90 marka waxaan samaynayaa halkaa imaado aan ayar halkaa 90 gashado. 90 markaan halkaa saa gashado ayaan ayar click leeyahay vertical baa laga dhigaya. marka rotating noocaas ugu samaynaysaa. haddii aad halkiisii haddii aan kusoo celino horizontalkiisii haddaba waxaan doonaya inaan resizing ku sameeyo. haddaan doonayna haddaan resizing ku xaweyn ama waad yaraynaysaa ama waad weynaynaysaa. marka waxaan doonayaa kaba soo qaadi inaan weyneeyaan doonaya. waxaan samaynayaa halka imaado markuu arrowga cursor-kayga isu bedelo arrowga toosan ee labada dhinac labada af ku leh ayaa waxaan samaynayaa sidaa idhaahdo haddaan doonayo inaan dhuubka u dheereeyo iyo haddii aan doonayo inaan balac ahaan sidaa idhaahdo inaan sidaa u samaysan karo. haddii aan doonayo inaan ayar halkii aan haddana saa inaan yareeyo haddaan doonayo inaan sidaa idhaahdo haddana aan sidaa vertical ahaan usoo yareeyo aan sidaa ka dhiga line-kaygiisa.
waxa kaloo aad samayn kartaa waxa weeyaan iminka shay baa wuxuu ku ahaa square buu ku ahaa square kaasoo kale yahay kadib waxaan doonayaa shaygayga isagoon dhinacyadiisa waxba iska bedelin dhererkiisa iyo baliciisa toona iyadoo waxba iska bedelin inaan weyneeyo kadib waxaan samaynaynaa shift qabto kadib aan halkan imaado aan sidaa u weyneeyo waxba iska bedeli maayaan dhinacyadii dherer iyo balac toona laakiin shaygaagu ku weynaanaya intaas ku laakiin square-kiisa ku ahaanaya qaabkaas isagana samaynaysaa shift baad la xijinaysaa basic navigation keena shanaad waxa weeyaan undo iyo redo iminka waxaan doonayaa inaan ku celiyaba wixii ilaa maanta qabqabanayay resizing ahaa inaan dib uga noqdo ayr kadib waxaan samaynayaa inaan tago edit aan ayr undo resize item aan taabto halkiisa waa liigu celiya edit haddana aan tago undo resize item aan tagto marka kolba inaad edit tagto aad undo soo doorataa way kugu yar adagta waxaad samaynaysaa control iyo sid baad ayrtaa taabanaysa ayrbaa kolba halkiisa lagugu celinayaa waad arkaysaa wuxuu ku noqonayaa halkii aan markale kusoo dhaqaajiyo rotationkii wixtaa ku noqday haddii aad arkayso waxaan doonayaa haddaba anoo dib u noqonaya oo kolba wixii aan ilaa maanta samaynayay aan wax intaan wax qalday dib uga noqonaya ayaan halkii aan doonayay baan dhaafay oo dib uga sii noqday marka rotatingkii iminka kale waan soo dhaafay haddaad arkayso marka waxaan doonayaa rotatingka wixii ka dambeeyay inaan ku noqdo marka waxaan samaynayaa haddaba inaan halkan tago edit kadib aan redo rotate item aan taabto halkiisi liigu celiyo haddana edit aan taabto redo aan doorto kolba halkiisi liigu celiyo taa lafteedu ku aagto waxaad samaynaysaa haddii aad doonayso inaad redo aad doorato waxaad dooranaysaa shift iyo control adoo isla xijinaya ayaad ayr set taabanaysaa kolba halkiisii waxaa liigu celinaya eg haddii aad arkayso kolba halkii aan kusoo noqonaya ka tegi markii hore saasaad u samaynaysaa waa basic navigation keena shanaad basic navigation keena lixaad waxa weeyaan arrangementiga ama shay inaan laba shay kala sarsaraysiin karo kaan doonana aan kor ka soo mari karo iminka waxaan doonayaaba rectangle-kayga huruda inaan kan kasoo saraysiiyo rectangle-kayga huruda waan dooranayaa right click baan leeyahay halkan baad listkan baad arrange ka raadinaysaa waa tan haddii aad arkayso arrange kadib waxaan doonaa bring front waxa weeyaan xagga u sarreysa isoo mari shay walba shaygaa iminka selection uu saaran wax wal oo documentigan yaalla waa inuu kasoo sarreeya oo uu kau sarreeya noqdo weeyaan bring to front bring forwardna waxa weeyaan shaygaygan shayga uu ka hooseeyo iminka labadeeda rectangle baa kala hooseeya rectangle-ka uu ka hooseeyo keliya waa inuu kasoo sarreeya ee aanu shay kale ka sarreynin send backward waxa weeyaan shaygaygan ka hooseeya oo keliya waa inuu ka hoos maraa send backna waxa weeyaan shay wal oo documentigan ku yaalla maxaa gudihiisa ku jiro wax lagu sameeyay kani waa inuu u hooseeyo noqdaa oo halka u hooseysa maraa marka waxaan sameeynaa inaan bring front iraahdo shay walba ha iga soo sarreeyo rectangular-kayga iga soo sarreeyo waxaan doonayaa inaan dib u celiyo right click baan leeyahay arrangement tegayaa send back haddii aan idhaahdo ilaa wuxuu ka hoos maraya rectangle-ka haddii aad arkayso madow background-kaya ayuu ka hooseynaya wata aad arkaysaa rectangular-kii walaal waxaan doonayaa haddana inaan rectangular-kan kasoo sarreysiyo madow oo aanu kan kale iga soo sarreynin right click baan leeyahay arrangement tegaya waxaan leeyahay bring forward baan leeyahay kor ii soo mari oo hal shay iga soo sarreysiyey click baan leeyahay rectangular-kii background-ka kaliya kasoo sarreeya haddii aad arkayso haddana right click baan leeyahay arrange baan leeyahay haddana haddii aan send backward idhaahdo wuxuu ka hoos maraya rectangular-kaas oo keliya iminka aan weliba bring forward soo dhacdo shaygaas keliya iga sarreeya waxaan doonayaa labadan rectangular ee iminka ka dambeeya inaan mid ahaan ka hoos mariyo right click baan leeyahay arrangement tegaya send backward baan leeyahay wuxuu keliya ka sarreynayaa kii yaraa rectangular-ka yaraa halkii noo yaalay ayuu ka hoos maraya ka background-kan oo ka sarreynaya arrangement tegaya kadib waxaan leeyahay send backward ayr buu iga hoos maray sidaa weyn aad u isticmaalaysaa arrangement-kana inaad laba shay kala sarreysiiso kolba kaa doonta aa hooseyso kaa doontana aad soo sarreysiisato basic navigation-keena shanaad waxa weeyaan preview oo ah shaygan hadhow intaanan weli daabicin ama on design jooga ma arki kalaa shaygan hadhow markaan daabaco qaab ku ekaanayo ama suu hadhow usoo baxayo kadib waxaan tegayaa intaan ayr waxaan horta leeyahay kana waxaan doonayaa in screenka iska leekeysiiyo waxaan tegayaa view kadib ayr baan fit page baan leeyahay ayr baa halkiisa liigu celinaya kadib haddii aan doonaya inaan preview arko waxaan tegayaa toolbarka haddii aad arkayso halka u hooseysa ee windowska un ka sarreysa ama haddii aad computerka doonto isticmaalo toolbarka halka u hooseysa haddii aad PC isticmaalayso waa windowska halka ka sarreysa muxuu ahaayey ayaad preview ka arkaysa markaad halkaa tagto right click baad leedahay haddii aad halkan ku arkayso waxaa kugu yaala normal preview bleed iyo slack iyo presentation marka ma doonayno waxyaabahan kale preview-gan u baahanay ayr baan click leh haddii aad arkayso hadhow documentigaygaasi marka la daabaco qaabkaa uu iminka halkaa uga muuqdo ayuu ii noqonayaa oo hadhow sidaas iigu daabacmaya haddii aan doonayo haddaba inaan preview-gii ka noqdo anaan waxba toolbarkaygii tegin ayaa waxaan taabanaya w key
halkiisi baa liigu celinaya haddii aan haddaan doonin inaan previewgii arko WQ baan taabanaya waa la itusaya WQ baan taabanaya waan ka baxaya marka on aan off oo kale weeyaan waxa inoogu xiga adding text ayaan doonaya inaan raaciyo waxaan tegayaa textkaygii marka haddii aad click tidhaahdo imika textka sidii Adobe Illustrator iyo Photoshop oo kale wuxuu kuu samaynayaa inuu rectangular kan kaa dhex geliyo colorki muxuu ahaa textkii oo hadhow haddii aad tidhaahdo textkaaga dhaqaajiyo halkan dhexda keen rectangularkii textkuba iska ka raacaya haddii aan imika text doorto aan halkaa click idhaahdo textkaygu ii samaysmay oo haddii aan imika saa u qoro text baa ii qormaya haddii aan control A idhaahdo wuxuu ii samaynaya inuu textkaygii kalareeyo haddii aan halkan tago aan ayar ka doorto kadib aan sameeyo inaan soo waaweyneeyo halkan aan saa soo waaweyneysto textkaygii text ii sameeyay oo ka text ii muuqda laakiin bal imika textkayga aan dhaqaajiyo oo iska ka raacay rectangularkii text control Z baan leeyahay marka waxaan sameynayaa control Z baan leeyahay textkan baan iska saaraya waan ka noqonayaa textkan markaan ka noqdo ayaa waxaan sameynaya hadda waxaad sameynaysaa markaad text soo gelinayso sidii InDesign maxaa Photoshop click oo dhan mise tape tool ma dooratay kadib waxaad sameynaysaa adoo xejinaya inaad saa u jiido hadba intaad doonayso inaad wax ku qorto inkoo kale waxaan doonaya intaan laakiin aan qoraal fara badan ma doonayo inaan qoro intaasaan doonaya inuu ila kaado justifying buu xitaa kuu sameynaya haddii aad muxuu ahaay aad hore u isticmaali jirtay tape tool-yada adhoobooyinka hore kadib ayar baan halkan ku qoranaya textka aan doonayo saasaan ugu qoranayaa saa markaan ugu qorto control A baan leeyahay waa la select gareynayaa waxaan tegayaa halka text colorkayga kadib waxaan sameynaa caddaan baan ka dhiganayaa caddaan markaan ka dhigto haddii aad arkayso textkayga ayar waan dhaqaaqaajin karaa imika isagoon backgroundkayga la dhaqaaqaya halkaan doonaan geyn karaa ayar kolba halkaan doonaan dhigan karaa waan edit garayn karaa waan waaweyneyn karaa sida textyada kale ayar baan saa usoo waaweyneysan karaa meeshaan doonan waan dhigi karaa backgroundkayga ma raacayo qaabkaasa markaa textka ma soo gashanaysaa cashirkeena maanta halkaas ku joogaya fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar oo nagu soo biir gambalelka digniintana furo si casharada kuu soo gaaraan mar walba oo aan cashar cusub soo gelino commentigana noogu reeb wixii faaleed qabto videogana like saar la wadaaga asxaabtaada oo sii share garee wixii su-aaladeysana waxaad nagu soo weydiin doontaa telegram linkiga halkaas soo yaala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu